بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دمان أرضية الصومالي ستار أونلاين ترينين عشرة كلا دوان مركا English and Computer Teaching إذا Professional Online English لغو برانيو سي Professional وانا مهم جدا تاس وحنا لسه حرير دونا هدي أنا وباهنو Direct Number وانا إنجري عشرة دي ستانا صومالي ستار أونلاين ترينين وحنا كبران كرنا English iyo computer labadaba marka waxaan sii maraynaa license 75 book practice and progress aha marka waxaan ku soo kala arki ka heli karnaa hadii wixii macluumaad aan u baahano blogspot-ka somalistar.online.blogspot.com waan ka heli karnaa waxa la wixii macluumaad aan u sii baahano marka halkaas marka English and computer wixii professional English waxaan la soo xiriiri doonaa direct number WhatsApp-na oo soo diri karnaa waana injineer cashirada isticmaalaa cashirada kala duwan oo computer-ka ah iyo qaybo kala duwan oo English-ka kuwa advanced-ga ah iyo kuwa aan advanced-ga ahayn oo bilowga ah iyo kuwa dhexdhexaadka waa wada qaadan karnaa waxaan kaloo ka heli karnaa exercise-ka exam-ka waxaa geli kara ardayda ka baratay YouTube-ka iyo meelaha kale ka baratay حتى exam كوي يجري كران لكن أي exam كوي يقول لي كران وكلية هل وي إني إسكب بحيان لعق أو exam كلا صدر وكش قيان يسوقادان ماشي مريان وحيبحين دونان $8 exam ككلية وأنا دور ورقضات بيوقع برا exam برجس exam كيس وحكوا بنان دونا إلا يأفر ورقضات أو عكس شقين دونتان جواب جليا كوجرتا وحكوجر سؤالها كشقين دونتان سؤالها أنا إيميل كيني يدكوا صور عيان مركز كبح حسان $8 أو عكس شقين أنا مركز وحاجان دونتان heerka aad ka sii maraysaan casharadii aad kaga faa'iideysateen idinko isticmaalaya internetka okay waxaan soo gudgalayaa license 75 marka license 75 cashirkeena waa SOS save ourselves loo soo gaabiyay SOS waxa loo soo gaabiyay save ourselves nabadbaadiyay waa English language book practice and progress aha waxaan sii maraynaa license 75 hore waxaan u soo qaadanay license 74 ilaa iyo license 1 ardayga wuxuu ka soo bilaabayaa cashiradan license 1 buu kala soo qabsanayaa ilaa license 75 baan sii maraynaa step by step marka dhamaan ardayda Somali Star Online Training cashirada tooska u qaata iyo kuwa aan tooska u qaadan ba exam-ka way gali karaan kuwa imtixaanka way gali karaan exam-ka ah kuwa aan cashirada YouTube-ka kaliya ka qaata kuwaasna laakiin waxa shuruudo ku xiran $10 ay iska bixinayaan email-kooda ugu soo dhacaya waxayna ka koobnaan doontaa imtixaanka wuxuu ka koobnaan doonaa 4 waraaqadood ama 5 waraaqadood marka kadib markay ka soo shaqeeyaanna waa ay soo diri doonaan qaabka looga shaqeynayana wixii faahfaahin waxay u soo diri karaan email-keena qaabka imtixaanka looga shaqeynayo okay wayna is ogaanayaan darajada ay ka gaareen casharadii ay ka heleen YouTube-ka iyo baraha kale okay waxaan soo gudgalayaa cashirkeena maanta marka SOS waa save ourselves SOS waxa weeye save ourselves nabadbaadiyay macnaha when a light passenger plane when goorti a light passenger plane diyaarad rikaab oo fudud light fudud bay ugu jirtaa when goorti a light passenger plane diyaarad rikaabka oo fudud flew of course ay la qabsatay sometimes waqti kadib flew of course ay jawiga qabsatay way sometimes ago waqti kadib it crashed waxay ku burburtay in the mountains buuraleydi it the crashed waxay ku burburtay into the mountains buuraleyda aniyo its pilotkeedana was killed waa uu ku dhintay killed waa la dilay ma aha was killed waa uu ku dhintay the only passenger rikaabka kaliya oo badbaaday markaa the only passenger rikaabka kaliya oo ka badbaaday a young woman waa gabar dhalinyaro ah and her 2 baby daughters iyo 2 gabdhood ay dhashay weeran haarti waxba maysan noqon it was the middle of the winter waxay ahayd bartamihii jiilaalka snow barafkuna laythik wuxuu si qaraweyn u daadsanaa on the ground dhulka qaraweyni macnaha dhulku ku baaxid aad buu u daadsanaa way barafka on the ground dhulku daadsanaa the woman gabadhi marka niyu waxay garatay that the nearest ugu dhawaan village xaafada that the nearest village xaafada ugu dhow was miles inay meelal ka fog tahay was miles away meelal inay ka fog tahay when it grew dark markay madoobaatay when it became dark oo kala way when it grew dark markay madoobaatay ee habeenkii sii noqotay she tied suitcase waxay u badashay suitcase sandadii dharka
into a bed waxay u bedeshay sariir ayay u bedeshay shandadii dharka and put waxayna dhigtay the children caruurta inside gudaha it covering idoo hubisay markaa ama ku dabooshay them caruurtee with all clothes dharkii oo dhan she could find ay heli karaysay during the night intii habeenka lagu guda jiray. It got tribal cold qabowgii aad buu usii xumaaday. It tribal wuu sii xumaaday way cold qabowgii. The woman gabadhii marka kept as near as she could. Kept as near way ku sii dhawaatay waxay ku dhawaatay as she could intay kari karaysay the children caruurta ay u soo dhawaatay. And you even tried xataa waxay isku dayday to get into the case inay shandada la gasho herself nafteeda. But laakiin it was too small aad buu u yareed shandada. Early next morning subaxdaa xigtay marka she hid planes passing. She hid waxay maqashay planes passing diyaaradaha isku dhaafayo overhead korkeeda. And wondered waxayna isweydiisay marka wondered la yaabidii maaha and wondered waxay isweydiisay marka how sida she could send ay ugu diri karto signal sinyaale ugu diri karto. Then intaa kadib she had an idea waxa ku soo dhacday fikrad. She had an idea waxa ku soo dhacday fikrad. She stamped waxay ku buufisay out of the letters xarfa ah SOS save ourselves in the snow barafkii ayay ku buufisay. Fortunately nasiib wanaag a pilot ayaa soo arkay the signal calaamadii ay ku buufisay on the scent wuxuuna u diray a message fariin by radio asoo adeegsanay raadiyaha to nearest town magaaladii ugu dhaweyd. It was not long before waqtiba kama soo wareegan bal sida loo aqrinaya fiiri it was not long before waqtiba kama soo wareegan. A helicopter diyaarad helicopter arrived ayaa u timid on the scene meeshii wax ka dhaceen. Scene waxa way goobtii to rescue say u badbaadiyaan to rescue siday u badbaadin lahaayeen the survivors haraagii ka soo haray ka samata baxay. The survivors waxa way kuwii ka samata baxay of the plane crash burburkii diyaaradda of the plane crash burburkii diyaaradda kuwii ka samata baxay si ay u badbaadiyaan. waa ku soo celinayaa marka dhammaan Somali Star online training barashada English language and computer teaching wixii ah dhammaan ardayda kala duwan marka lesson 75 baa maanta sii mareynaa cashirkii 75aad buugii practice and progress ahaa marka somalistar.online.blogspot.com waa ka heli kartaan. waxaan la soo xiriiri doontaan wixii examka danaynaya imtixaanka inay galaan oo YouTube-ka iyo casharada intii 75 ilaa 1 ka bartay waxay la soo xiriiri karaan Yahoo bay fariin u soo diri karaan ama direct number iyadoo casharo kala duwan horeyna aan u soo qaadan. SOS waa save ourselves baa loo soo gaabiyay. When a light passenger plane markay diyaarad rakaab oo fududi flew over course ay la qabsatay jawiga qabsatay sometimes ago waqti kadib it crashed waxay ku burburtay into the mountains buraleydii. And its pilotkeedana was killed waa uu ku dhintay waa la dilay ma aha was killed waa uu ku dhintay. The only passenger rakaabki keli ahaa oo badbaaday marka young woman waa gabar dhalinyaro ah. And her two baby daughters laba gabdhood ay dhashay were unhurt waxba maysan noqon. It was middle of the winter waxay ahayd bartamihii jilaalka. It was waxay ahayd the middle bartamaha of the winter ee jilaalka. Snow barafkana marka laysig wuu daadsanaa way laysig wuxuu si qara weyn u daadsanaa on the ground dhulka. marka middle of the winter marka lagu leeyahay jilaalka waxa keenaya wadamada Ingiriiska jilaalka xilliga ay tahay baraf ayaa aad soo daay Mareykanka. marka it was waxay ahayd baa lagu leeyahay the middle of the winter xilli bartamihii jilaalka. Snow barafkana laysig wuxuu si qara weyn u daadsanaa on the ground dhulka. The woman gabadhii marka niyu waxay garatay that the nearest village xaafadda ugu dhawi that the nearest village xaafadda ugu dhawi was miles inay meelal away ka fog tahay. when it grew dark markay noqotay habeennimadii saqdhexe when it grew dark markay aad u madoobaatay she tied waxay u bedeshay the suitcase for shandadii caadiga ahayd into a bed sariir ayay u bedeshay into a bed sariir ayay u bedeshay. And but the children caruurtana way dhigtay but waxay dhigtay
the children caruurti inside gudaha it covering iyadoo ku dabooshay them iyage with all clothes dharkii oo dhan she could find ay heli karaysay during the night habeenkii intay socotay it got the trouble call waxaa yimid qabow aad u xun it got wuxuu noqday the trouble call qabowgii aad buu u xumaaday the woman gabadhii markaa kept as near way ku sii dhawaatay kept as near way ku sii dhawaatay as she call intay kartay to the children caruurta aniyo even tried xataa waxay isku dayday to get inay gasho into the case shandada heer salaf nafteeda but laakiin it was too small aad bay u yareed shandada early next subaxdii xigtay marka early next morning subaxdii xigtay subaxdaas she hid waxay maqashay planes passing diyaarado isku dhaafay overhead madaxeeda ama korkeeda and wondered waxay isweydiisay marka and wondered waxay isweydiisay how sida she could send ay ugu diri karto signal calaamado ama sanyaalo them iyaga then inta kadib she had an idea waxa ku soo dhacday fikrad she had an idea waxa ku soo dhacday fikrad marka she stamped waxay ku buufisay out of the letters xarfa ah SOS save ourselves alo soo gaabiyay xarfa ay ku buufisay barafka dushiisii SOS in the snow barafka ku buufisay fortunately nasiib wanaag pilot nin baylooda soo wayaarkay the signal calaamadaas la qoray aniyo send wuxuu u diray a message fariin radio asoo adeegsanaya raadiyaha diyaaradda ku xiran the nearest town magaaladii ugu dhaweyd it was not long before kamaba soo wareegin waqti fog it was waxay ahayd not long before kamaba soo wareegin waqti a helicopter diyaaradda helicopter automatic kuwa u kaca arrived ayaa u timid on the scene goobtii wax ka dhaceen ayay timid on the scene meeshay wax ka dhaceen waa arena kala scene arena waa meesha scene waa meesha ay wax ka dhacaan to rescue say badbaadisa marka rescue-na waa badbaadadii to rescue say badbaadiso the survivors haraagi ka haray the survivors samata kuwii ka samata baxay way af Soomaaliya dillo the survivors kuwii ka samata baxay of the plane crash burburkii diyaaradda kuwii ka samata baxay say badbaadiso iyadoo casharo kala duwan aan soo qaadanay markaa Somali Star Online Training English Language and Computer Teaching waa dhammaan ardayda Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed meel walba adduunka ka joogaan barashada luqadda Englishka oo online-ka lagu dhigto professional English and Computer ka baro adoo qof professional ka baranayo waxaana la soo xiriiri doontaa direct number WhatsApp-na waa u soo diri kartaa sidaa darteed markaa في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.